كفماي مركا شلي هوي وسبودن waxay dhaheen daarood waan necebnahay daarood halalaayo 1990 maxaa ku dagaalanteen hawiyo maxaa dadka u layseen shalay waxaad tiraaheen daarood nooma imaan karo kaba ka waaweynu wataa abgaala ka yeeraysay cabdullaahi yuusuf oo soo degay waa la wadaa loo taliyay waa laga tagay maantay waa loo fiiqay dhulka loo nadiifiyay حسن شيخة أيوة مقدو عندها الله تري عندها إلا الله تري 1972 أيها أبي وصوصفتو عرب تري هذا حسن عرب تري إسلام لك أيها إس عرب تري دارك يا شاء الله يساكو وصل نقضي don't you ever think إنه كنت عليها مركز أصعب التميسة مركز ما أنت عاود وذا سيات حمرك يريسا I'm very very sorry أبقى الإسمان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هو يشرف بدن وهو يدان إن لكن سؤال بدن أجعلان لهنا ويجي ما تحدي إلى جوج لهاد أما أيجا هري مع لهاد وحنا جعل إنا فيديو كان جارسيسين سي أي سؤالها سأنو هايو أي يوسو جوابته أيضا يوالد كلام بدأ وفكرة داس أي كذا دعسن تهاي horta kooda horeysa waxaan nahnay anaga awlaad ama ilmaan nahnay lagu barbaarshay yani ka dambeynta adeecidda raaligelinta yani qofka naga weyn ciduu doona ha ahaado ama hooyada ha ahaado ama eedada ha ahaado ama habaryarta ha ahaado ama dariska ha ahaado waa akhlaaq wanaagsan oo nalagu kobciyey nalagu barbaariyey in waxaa kaloo nala baray in aanan qofka weyn hadal ku celinin inaanan qofka weyn aanan sixi karin inaana qofka weyn go'aanka uu gaaro aan ku dhaqaaqano ee aanan dhihi kareynin go'aankan ama saan u qaldan yahay go'aankan ama wax ka bedeli karayna taasaana lagu barbaariyay haddaan u hadlayo dhalinyarta Soomaaliyeed oo dadkii in maaragtay ciyaalka ahaa xilligii burburka Soomaaliya si fiican ugu caqliyeysan iyo wixii ka dambeeyay dhashay wixii gudaha xilligaas dhashay iyo wixii ilaa maanta dhalanayo dhalinyartaas haddaan maanta u hadlayo oo aan u weydiinayo maamadaas abgaal uma hadlayso ee nafteeda iyo rabitaankeeda bay ka hadashay laakiin ku qiireynaysa inay abgaal u hadlayso waxaan weydiinaa waxaan ahayn dhalaan hadalkiina yacni maqla oo in ka dambeeya abaalgud yacni hooyooyinka iyo aabooyinka Soomaaliyeed oo la midka ah maamadan oo ayaduna ka koow tahay iyo kuwa Soomaaliya kala qaybiyay waalidkaasoo waxay tihiin waalidkeen sharaf baana naga mudan tihiin laakiin abaalgudkiini aan nasiin lahaydeen ka dambeyntiini maqalkiini wuxuu noqday ana in xasuusinaya annagoo ciyaal ah yacni annagoo ilmo ah inaad cuqdad nagu beertiin annagoo u baahan inaan la saaxiibno la ciyaarno deriska ilmaha deriskeena ayaad waxaana barteen kanu waa cadowgiina ee hala ciyaarinina kanu waa cadowgiina ee tuuriyeeya kanu isku cidma tihiin baana barteen horta taas maskaxiyan waa noo disheen talabaad oo aadna badeen oo ama aragta resultaatkii aad diyaariseen ay noqotay waxa waaye rabitaankiini markaad muujiseen ayaad waxaad hadiyado nooga dhigteen ilmuhu waxay ku ciyaaraan alaabaha ciyaalayska ah oo farxadda ilmaha u dhaliya annaga alaaba ciyaalays waxaa nooga dhigteen alaabaha ciyaalka oo hadiyada waxaa nooga dhigteen baaruuda bumbooyinka qaraxda waxaa nooga dhigteen baasuukaha lasoo tuuray ama xabadaha markii lasoo tuuray fooqooda nashiidooyinka ilmuhu ay dhageystaan ama heesaha ciyaalka loo daaro ay ku farxaan waxaad nooga dhigtaan dhawaaqa xabadda waxaad ahaydeen kuwa indhaheena aan ku daawanayno oo aan wax walba uga dayanayno yacni role model waalid baad noo ahaydeen role model ahaydeen haddaad na dhasheen haddaad deris nila ahaydeen haddaad qabiil nila wadaagteen wax walba aad nila wadaagta haddaad Soomaali guud aad tihiin waxaad noo ahaydeen dadka keli oo ku tababaranayno waxa ahaydeen dadka dhaqan baraayay dadka tarbiyeynayay indhaheena waxaad barteen oo aan inka raacnay indhaheena waxaad barteen oo ay ka raacno waxyaabihii ay ka aragnay ah isqabsi
isdagaal kala sooc xabad dhacaysa dhiig daawac jir dhul yaala waxyaabahaas baan kusoo barbaarnay ilmanimadeena waxyaabahaasaan soo qaadana waxyaabaha kale waxaad ahaydeen dadka waxa ay maqlaan aan wax ka barano ilmigu wuxuu wax ka bartaa dariskiisa waalidkiisa number 1 ha ahaado waxaan inka baranay sidaa hore usoo sheegay qabyaalad nacayb ciil reer hebel annaga ka xoog badan annaga waa inaa ka raynaa baadna barteen taas baa dhagaheedna ka buuxiseen waan in maqalnay waa in adeecnay waa raacnay waa dhibcaanay dariskeennii soomaaliga ahaa waxaan baranay qabiiladeena inay ka sharaf badan yihiin qabiilada kale waxaan baranay oo kale ina annaga nalaga sharaf badan yahay qayb ka mida dhalinyarta soomaaliyeed waana liideen waxyaabaha kale oo aad samaysay yani annaga abaalkii aad sameynay adeecitaankii iyo tarbiyadii iyo barbaarintii waxay noqotay inaan markaa weynaano soo caqliyaysano ay laba mid noqoto inaan tahriib galno inaan nafteena khatar gelino yani inaan nafteena khatar gelino badda weyn oo aad aragteen aan bacyar nafteyda ku aamino waayo waxa iga dambeeya ayaa waxa ogahay inuusan mustaqbal iisoo socon laba mid bay noqotay inaan doorano haddaan dhahnay dhalinyarta soomaaliyeed waxaad noo diyaariseen yani waalidka soomaaliyeed oo dadka waddankii soomaaliya burburiyayow kuwa weli u taagan inay burburiyaano kuwa weli yani raba inayna kala soocsoocaan oo qabiilada ururada u samaysto kuwa maantayto farmaajo nalka uu ifiyey oo dadka shacabka soomaaliyeed iyo weliba qaasatan ahaa dhalinyartu ay ku dhooshay ay isdhahaysa allamaanta mustaqbal baa ilmahaagu samaysan doonaa baad raba inay ka hor imaadaan mustaqbalkii iyo nolosha aad noo diyaariseen baan isoo xasuusinayaa tahriib baan danmood tahriib inaan badda nafteena ku halayno baan danmood tahriib hadda xataa kasoo badbaado kii dhigta wuuba dhigtay geerida xaqaabaa u imaata allah u naxariisto kii kasoo badbaaday dhul buu imaaday lagu cusuriyeynahayo midabka uu leeyahay lagu cusuriyeynahayo madhabka uu aaminsan yahay ilmaha soomaaliyeed oo wadamadan jooga baabaa baali waxay tiri waxaad la hadashaa wiilkeeda yaroo dugsiga iskuulka diiday waxaa ku yidhi maxaad iskuulka ku diiday wuxuu yidhi iskuulka maxaa ka tegayaa haddayba hooyaday cayr qaadato waxaa ku yidhi hadalkaas ayaa kugu dhaliyey wuxuu yidhi dhalinyarta ah iskuulka isla dhigana ayaa waxay dhahaan cunto firiyaad heshaa waayo aabbayaashan iyo hooyayaashan waxay shaqeeyeen baad ku dhooshahay hooyadaa iyo aabbaha cayr bay qaataan naagta u balaysa inay ilmaheeda la soo badbaado dhibaatada soomaaliya ku dhacaysa aysa ayada saameyneyn ama aabbaha sidaas dareemayo ogow ilmaha iskuullada inay dhigto cuqdada ay ku nool yihiin ilaa man raxim rabbi qof ka badbaado adkaysi yeesha ma aani ma jiro ilmay soomaali ah oo iskuul dhigto oo cuqdad la kulminin anoo hadalka aan in ku dheeraynaynin waxaan kaloo in soo xasuusinayaa inaan danmoodna isqarxiska waayo waa halka madhaba halka meel uu u arkay qofka dhalinyarta ah oo doortay inuu naftiisa qarxiyo yacni inuu uga bixi karaayo noloshan mugdiga ah waayo cadaawad baa nugu koriseen nacayb baa nugu koriseen nacayb nolosha dhan baa nacnay jacayl miinaan na tusinin nabad miinaan na tusinin bal iiga jawaab su-aashida maxaad ka faa'iiday maxaa noloshaas ka faa'iida aad nagu koriseen haddaan dhalinyar soomaali nahnay oo maanta weli al'aanka aadna isticmaalaysiin gobollo aan u taagan nahnay waayo ninka qoriga wada ma ahan waayeel ma ahan aabbalaba konton jir ah waa wiil dhalinyaro ah waa dadkii dhashay xilligii dagaalada ama ka dambe weli al'aanka waa u taagannahnay waayo cadowga iyo nacaybka aad nagu koriseen baa u taagan nahnay maxaad ka faa'iida marka ma waxaad ka faa'iida hebel waa geesi wuxuu jecel yahay qabiilkiisa waa nin saan ah waa nin taas baad ka faa'iida ma lagu caleema saar oo qabiilkaagaa ku doortay maxaad ka faa'iida anigu waaba fahmi la ahay maskaxdaydana way ka dhaadhici leedahay dhalinyar badan oo soomaaliyana weli way ka dhaadhici leedahay ma aragta waxyaabaha aad ka faa'iideen dhibaatada aadna kala dhex dhigteen hal su'aal baa in weydiinaa hal mid baana inii caddaynaya dhulka annagaa iskale jaaniskiinii waad hesheen yacni wixii aad qaban karteen wixii aad fali karteen wixii aad qurdudubi karteen wixii aad jijabin karteen waxaad nacayb iyo cadaawad ku beeri karteen waad hesheen jaaniskiinii jaaniska maanta annaga buu lila jiraa waxaana ballan ku qaadaynaa haddaan dhalinyarta soomaali nahnay waxaad noo diyaariseen
mustaqbalka noo diyaarisan inaana awlaadeena u diyaarin uma diyaarin doona awlaadeena waan ka xorownay waa in ka xorownay waxbaan fahanay waxbaan baranay waxbaan akhrinay unity-gu muhiimadda ay leedahay baan fahanay cadowgeennaan dareennay waa in ka xorownay waa in ka xorownay ninkii cadaawad nagu beeray shalay ninkii laba walaalaha cadaawad kala dhex dhigow waan kaa xorownay maanta walaalaan nahnay daarood ahow hawiye ahow mid kale ahow qabiilkaa doontid sheego waxaa tahay walaalkay waxaa tahay walaalka kale oo soomaaliyeed waxaana ballan ku qaadaynaa haddaan dhalinyar soomaaliyeed nahnay jeclahay inta badan oo soomaaliyeed inay igu raaci doonaan in ana awlaadda aan dhali doono ana u diyaarin kuway noo diyaariyeen kuwii naga horreeyey siduu madaxweynuhu qowlkiisa ku sheegay uma diyaarin doono waxaan istaagaynaa oo garab istaagaynaa midka danteena dalkeena iyo nolosheenna ma aragtay ka shaqaynaya horumarkeena iyo sharafteena mid ka soo celinaya kaas baan garab istaagaynaa soomina garab iiga jawaaba bal waxyaabaha aad ka faa'iideen ilaahba aan ku dhaarshay iiga jawaab bal waxyaabaha ka faa'iideen waxaa kaloo dib ugu soo laaban lahaa hooyadan dhahaysa afgal yani wuu isduleeyey ama daarood baa maanta soo celiseen oo idinma jecla farmaajo waxaa doortay baarlamaanka doortay dad yar baa qabiilkiisa uga jiraan jeclahay ma hub yani laakiin dad yar baa uga jeclahay baarlamaan baa doortay baarlamaankaas oo shacabka soomaaliyeed matelay wiilka muqdisho ka banaan baxay haddii adi sharaf yani in lagu caayo aa ka baqaysid in lagu dhaho alla sidaan baa reer hebel sidaanaa la sameeyey haddaad ka baqaysid annaga nolosheennii baa riski ku jirta nafteennii baa riski ku jirta ilmaheenna toodii baa riski ku jirta sharci walba oo adduuweynaha ka soo baxay number one soomaalidu qabsadaa kii maraykan baa soo baxay number one uu soomaali qabsada kii sweden baa soo baxay number one buu soomaali qabsada kii london baa UK da soo baxay number one soomaalidu qabsada maxaa dhila rabtaa bacadow la shaqays baa tahay waxaan leeyahay madaxweynaha soomaaliyeed ku soo dhawow xilkaaga waxaa naga dantay rajadii aan lahayn waxaa naga madoobaatay mustaqbalkii aan lahayn waxaana tustay iftiin waxaana tustay inaan isjeclaan karno maana aaminsaneen inaan isjeclaan karayno inaan walaalo noqon karayno haddaan soomaali weyn nahnay ma taas aaminaadeedu waa nalaga tirtiray waayo waxaa naloo muujiyay inuu karu yahay cadowgeenna number one iftiinkaasaa noo soo celisay iftiinkaasaa noo soo celisay qofka raba inuu iftiinkaas naga debiyana allaha debiyo qabyaalad baatay badda weyn xeebta weyn baa qaaday ninkii qabyaalad qalbigiisa ku jirta fadlan xeebta raac hana nugu soo laabanin waa ku daalnay waa tabar dhignay dad daciifaan nahnay waxa qaxooti dhooban waa annaga hooyada dhibaataysan waa annaga gabadha la kufsanaayo waa annaga wiilka badda ku dhimanayo waa annaga war intaasoo dhan haddaysa jirkaaga naxayna qalbigaagaa dhintay ilaahaaga u soo laabo hadalkayga ugu dambeeya waxaan leeyahay ma ihi hawiye mana ihi daarood ma ihi shanta soomaaliyeed qolada ay doonta ha noqoto waxaan ahay qof soomaaliyeed soomaalinibaana u taaganahay qabiilkaygu waa soomaali dalka soomaaliyana anuu maantayto gacantayda ku jiraa siduu noqon doono mustaqbalka soo socda iyo ilmahayga say u noqon doonaan fadlan dadka cadowga wada naga saara cadownimadiina